رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وبوقشة رسمي ku jooga dalkani Uganda madaxweyne Museveni ayaa ku soo dhaweeyay aqalkiisa madaxtooyada ee Entebbe halkaas oo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Bambayda kadib labada hogaamiye waxay galeen shir albaabaha u xiran yihiin iyadoo halkaas saxaafadda dibad joog ka ahayd wasiirada arrimaha dibadda Uganda iyo Ethiopia ayaa kulankaasi markii uu soo ilaaday waxay u warameen saxaafadda wasiiradu waxay sheegeen in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xiriirka ganacsiga u dhaxeeya labada dal waxay sidoo kale ku heshiiyeen labada hogaamiye wadooyin isku xirto labada dal sida Ethiopia iyo Uganda wadadaasi oo soo mari doonta waqooyi bari Kenya sidoo kale labada hogaamiye waxay isla soo qaadeen xasilinta labada dal sida Soomaaliya iyo South Sudan Ra'iisul Wasaare Abiy waxa la doortay muddo 2 bilood ka hor wuxuuna isbedel badan ka sameeyay dalkiisa sidoo kale waxa uu madax banaaniyay ganacsiga sida diyaaradaha iyo isgaarsiinta Ra'iisul Wasaare Abiy wuxuu sheegay in dastuurka Itoobiya dib loogu noqon doono isla markaasna waxa uu cayimay inta uu soo sharxi karo Ra'iisul Wasaare sidoo kale Ra'iisul Wasaare Abiy wuxuu booqasho gaaban ku tagay wadamada Kenya Djibouti haddana wuxuu joogaa dalkani Uganda Abbas warsamaxaanshe Home Cable TV Kampala